hadda ma waxaan kaa qornaa inaad wadaad tahay mise waxaan kaa qornaa inaad siyaasi kutuba xoor tahay inaad Fahad Yaasiin iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inay kala tagaan dad badan baa qaadan waa ay ku noqotay. maxaad ku kala tagteen 10 askari oo nin walba aniga iga xog badan yahay oo dhaadheer baa la keenay waxaa lagu dhahay telefoonka dhiib telefoonka keen telefonkii baan laga qaaday waxay ugu dhahan laba choice aa leedahay sida ka muuqata haybad qaran suuqan idiin taalla waa dowlad dhisan madaxweynihiina la yaqaanaa dadka ra'iisul wasaarayaasha noqon karaa la yaqaanaa governorka muqdisho qofka noqon karaa la yaqaanaa 4.5 kii xitaa waad u dhisantihiin hawiyad dir iyo daarood iyo digli marfle waad u dhamaystirantihiin yaa idinku soo biiraya yaa meel buuxda lug soo gelin kara hadda waddanka waxa madaxweyne ka xasan sheekh dabeecadii ra'iisul wasaaruhu leeyahay dabeecadii madaxweynaha ma leh siyaasaddaadu way salafiyeysan tahay waxaana daliil u ah waxaad aaminsan tahay siyaasadda in lagu kala adkaado alwalaa walbalaa marka taa iyada lafteeda wax ku darbal 3 kelmadood baan ka dhahaa qalbi dhagax kiisi qalbi dhagax waxaa shirka ku ahaa 3 qolo ada hore lagugu eedeeyay oo xafar badan laga sameeyay inaad dilka ikraan ku lug lahayd adiguna markaad shaqada ka tagtay dad rag baad eedayso waxaad tiri hebel iyo hebel baa yaa ku jira haddana waad aad noo sheegaysa in jidadkii oo dhan ay kaa xirmeen aad ku iman lahayd xamar markii dambana aad tahriib ku timid horta ikraan yaa dilay hal eray un baan ku idhoon soomaalidii aad la dhaqmi jirteen kama mid yahaan ku idhi meelaan xafiiskaaga ahayn haddaan ku kulmi lahayna si kalaan kula hadli lahaa haddii adiga aadan official ahaan lahayna tallaabaan ka qaadi lahaa waxaa jirta xan baryahan bayaan oran laakiin guud ahaan adiga kugu gadaanayd oo ahayd doorkii hore dowladdii aad ka tirsanayd inaad milkiile ka ahayd haddana waxaanaad abaabulayso aad milkiilanimo cusub raadinayso marka siyaasaddan milkiilaha ku dhisan goormay Soomaali ka baxaysaa